السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داوان ايساي مير وليبا واجوكتان هالكني وويب سايت كعانكي aminartist.com aminartist.com وويب سايت خبير كوان نقشدين تصورada kartoonada ee hadba la socda xaaladda siyaasadeed ee adduunka. daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadli doono munaasabadda maalinta 21 Oktoobar oo maanta ku beegan. waxaanu dib u xusuusan doonaa muddo 41 sano ka hor sida kacaankii markaasi uu la wareegay xukunkii dalka Soomaaliya. daawadayaal intaan barnaamijka ku jirno waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhdii hogaamiyihii towradii sare ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre. waxaanu idin rajaynaynaa waqti wanaagsan iyo daawasho wacan. كوبي 20 أكتوبر 1969 waxay ahayd maalintii dalka Soomaaliya ay la wareegeen ciidankii xoogga dalka Soomaaliya taasi oo ka dambeysay kadib baarlamankii rayidka ahaa ee xilliga jiray oo muran iyo booq fara badan markaasi hareeyay taasi oo ku wajahan cidii loo dooran lahaa madaxweynihii badali lahaa Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo 15 Oktoobar 1969 lagu dilay magaalada Laascaanood xilli halkaasi booqasho uu ku marayay. habeenimo isniina oo aroornimadeedii Talaado ahayd oo ay ka hadleen Radio Muqdisho saraakiishii ciidanka ee dalka la wareegtay ayaa waxay sheegeen in dalka Afgambi ay ku qabsadeen magaalada Muqdishona lagu soo rogay bandow soconaya 4 galabnimo ilaa iyo habeenkii. waxaana ciidamada awood loo siiyay inay baari karayaan goob waliba oo wax ku tuhmayaan. haddaba aan wada dhageysano wariye BBC-da xilliga Muqdisho u joogay oo warbixin ka diraya kana hadlaya xaaladda magaalada Muqdisho waxaana isagoo ribood diraya uu yiri iyo diraysa ayaa la wareegay xukunkii dalka Soomaaliya inqilaab ay dhigeen oo wararku ay sheegayaan inaysan ku daadan waxaana ay sameeyeen majliska inqilaab afgembigaasi wuxuu dhacay salaadii saacad waxaana ay ku afgambiyeen xukuumaddii Mr. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ee ka samaysneyd xisbiga SYL waxaana 6 maalmood ka dambeysay dilkii madaxweynihii Soomaaliya President Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo diimada iminka loo hayo in ka mid ah ciidamada Malaysia. reeriyowga magaalada Muqdisho wuxuu xigtay war ay ku dhawaaqeen majliska inqilaabka cusub oo ay sheegeen in afgembiga ay u dhigeen si ay uga badbaadiyaan oo ay uga bixiyaan dalka Soomaaliya. waxa ay ku tilmaameen musuqmaasuqa iyo xumaan talidka jamaacadda u baraystay inay taliyaan. banjo ayaa lagu soo rogay dalka inta u dhaxaysa 4 galabnimo iyo 10 subaxnimo. waxa kale oo majliska inqilaabku ay ku dhawaaqeen inay u shaqayn doonaan sidii loo baabi'iyo dadweynaha waxaana la mamnuucay tajaruud wax ka badan inay jiraan. ciidamada militariga ayaa ilaalinaya oo tuban sidadka magaalada Muqdisho waxaana amar loo siiyay inay baaraan guryaha iyo baabuurta. xuduudda dejiyaasha diyaaradaha ee dalka Soomaaliya waa xiran yihiin. majliska inqilaabkuna waxay sheegeen siyaasadii dibadda ee dalka Soomaaliya inayna isbedeleen. kalfadhigii ugu horeeyay ee yeesheen saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu yagleelay golo sare isagoona loo idmaday inuu hormuud u noqdo sareeye gaas Jaale Maxamed Siyaad Barre.
waxaanu daawadayaal isku dayi doonaa inaan idiin soo koobno taariikh nololeedkii Jaalle Maxamed Siyaad Barre. maxamed siyaad barre waxa uu dhashay 1919 wuxuuna ku dhashay magaalo lagu magacaabo Shilaabo. maxamed siyaad barre hooyadiis waxaa la oran jiray Shaqlan Warfaa. siyaad barre markii ugu horeysay waxa uu tababar ciidan ku qaatay magaalada Baladweyne. markii tababarka uu dhamaadayna waxaa loo soo bedelay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka. waxaa loo keenay si tababaro dheer iyo ciidamada uga sii qaato xeradii ciidamada ay ku taala degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. maxamed siyaad barre wuxuu ku biiray ciidamadii Ingiriiska waxaana dalacaadii ugu horeysay ahayd alifle ka helay sanadu markay 1941. maxamed siyaad barre oo saddex xariglaa waxaa loo qaaday dalka Talyaaniga sanadu markay 1952. 16 Oktoobar 1954 ayaa maxamed siyaad barre uu qaatay xidigtii ugu horeysay oo noqday sarkaal. 1960kiina waxaa la dhisay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay Allah u naxariistay generaalkii sida aadka loo jeclaa Generaal Daawud Cabdullaahi Xirsi. markii uu geeriyoodana sanadu markay ahayd 1965 waxaa bedelay oo jagadaasi qabtay Generaal Maxamed Siyaad Barre isagoona noqday taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaana xukunkaasi uu hayay muddo 21 sano ah waxaana ku geeriyooday dalkaasi Nigeria oo magangalyo ahaan u joogay ilaa iyo sanadkii 1995. 23 Oktoobar 1969 ayuu jeediyay maxamed siyaad barre khudbadiisii ugu horeysay waxaana uu soo hadal qaaday sababta xukunka ay uga tuureen dawladdii rayidka ahayd iyo hadafka ay hiigsanayaan haddii ay yihiin towradda dalka la wareegay. dowladda Soomaaliya waxaa si weyn loogu xasuustaa xanaaneyntii iyo barbaarintii caruurta agoonta iyo ubadkii kale iyagoo aanan haysan cid xanaaneysa iyo horumarkii dalka oo meel hoose dawladdaas intay ka soo qaaday dusha sare geysay ana kacaanku guulo uu ka keenay waxyaabo fara badan oo dawladdii ka horeysay markaasi ay ku guul daraysatay waxaana kamid ah ololihii barashada afka hooyo dhismihii hay'adaha dawliga ee dalka laga fuliyay barnaamijkii iskaa wax u qabso dhismihii isbitaalada dugsiyada waxbarashada ilaa iyo heerarka jaamacadeed oo lacag la'aan laga dhigay qof kasta oo shaqaale dawladeed waxaa lagu waajib yeelay inuu tababar u galo xerada tababarada ee Xalane waxaana taasi ay keentay inay kororto tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar maxamed siyaad barre wax laga weydiiyay in talada ay dib ugu celinayaan maamulkii rayidka ahaa ayaa isagu waxa uu kaga jawaabay waxaan leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeralayda iyo dadka shaqooyinaha iyo askarta
إنه يجب كل الذين ولا مجمع عين كواهن بأننا نغطى حسن ليس الصومالي وعمل واجب يوتها إن كفر التطاع أنا عن نبي بعد عن قبله في غش سبعين تاي وريكا أي معروف أقول بيدني من إخلاصها وصفي عن نبوش قينية حد من نبوش قينية يمكن ما يصبح في سيئة ممكن ما عن نبوش قينية صوامين طلعية وحورها مدحبها هي وبيرميد الصنيصان هي وبيرميد الصنيصان هي وقرابتين صنين هي قد تجارة عمل كبد الصنع هي صوامين تعالوا الحروب السؤال روكع أمتها كل شيء رؤيتين أنا لها كاس بيسات في الموضوع مقطع مركا حكم في أنا وحان مثلنا عاي حبة يحيى يعني مثل حكم عسكري أنا هو يهدي أنا الواي ورا بسكري عين تتبال اللي يجيت الماني يتيسي كيحيى سيدك اللي يرى متعلمين تاع والرعاية وضلك تشوي سو ما هي يعني هذا بس وحلا يجب أن يكون دواتنا هي المسلم قرمات من الإنسان حيات إرادة هذا بسعطان حلول الأسباب اللي يقول الترعية وحن صلينا مركي بدكو وعبر غير في عم بصمر أي مستحديثه أي إذا أنشي أي أقول له غطو متصون على الإخلاصة متى ترى أي جوهر هي يلحظ هي لالي ولالي تبصعنا ويسرا وين انا عيني تكتين الكوثر لالي ولالي تبصعنا ويسرا دوما هو أهل سواتا وعقل دارجتي ولد يا دوما هو أهل سواتا daawadayaal heestaasi wadaniga ahayd waxay guniyo gunaanad u ahayd barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay munaasabada maalinta 21 Oktoobar oo maanta ku beegan sanaduna waa 2010 barnaamijka dhanka farsamada iyo tabintu dabcan waa aniga Cabduqaadir Cali Maxamed Cabduqaadir Qeyska dhanka kameraduna waa Maxamed Salaad Xasan Cadde inta aan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhammaan waa asxaabta barnaamijka oo idin leh sida ay nabadgelyo salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuh halkani waa website-ka caanka aminartist.com